بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaa in badan ay dadka na soo weydiiyeen nimanka wahabiyada ah ee khawaarijta ah maxay yihiin ujeedkooduna muxuu yahay in loo cadeeyo waxaana kamid ah gabadhan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa in badan dhagahayga ka badatay wahabiyo marka waxaan u baahanay wahabiyada bal la cadeeyo wahabiyadana ma manhaj la raaca waan maqlahay qaar le waa manhaj la raaco ciiriyo macalladka kulifada diinta ka baxaan ma madhaba afarteen madhaba inuu shaafici ka haysano shan ku ah idinka la idinka fadhiyaa anigu manhaj iyo madhabtoona ma soo arag laakiin waxaan soo arkay Sheekh Maxamed Cabdi Wahaab la yiraahdo oo kutub waliba aqeedada uu ka qoray kutubtiisa khadan kuma arag wax kasta aayad iyo xadiis daliil oo haysta marka kitaabkaas ka mid kitaab tawxiid bala dhaha kutubtan hadii ay tahay mushkiladu Maxamed Cabdi Wahaab qoray oo wax khaldan ku qorayeen walaalayaal oo tusa oo ka soo saara hadii ay kutubtan ku qorantay si qaar badan ilaahdeen isqarxiya oo dadka isqarxinta lagu baro ka soo saara hadii ay ku qoran tahay in muslimiintu gaaleeyeen ka soo saara hadii ay ku qoran tahay in xaakimka lagu baxo ka soo saara anigu wax khaldan kuma arag kutubtan waxaan u baahanay la soo cadeeyo wax ku qoran kutubtan Maxamed Cabdi Wahaab anagu sheekhna ma raacayno ninna ma raacayno kitaabkan iyo sunnahan cinda waafaqda ayaan raacayna laakiin naga midkiin qabato idinka ila dadka khalqaysaan oo wahaabi dagaha kaga cuntaan wahaabigan soo cadeeyo cilmi ku hadla walaalayaal wahaabigan cadeyn buu rabaa in dadka loo cadeeyo lagu leeyahay dadku say iskaga eegaan kutubtan hadii wax khaldan ku jiraan anaga inta hargeysa meel kasta ka ururino iyo muqdisho anaga gubayna anaga dadka uga digayna in ka badan haduu manhaj yahay anaga dadka uga digayna in idinka ka badan marka walaalayaal oo tusiya inaga midkiin qabato dad wahaabi tirahdaan oo umada khalkhalisaan والله أنا أنت خلصان أنا أركي أبي كلفتنا نصوده فيديوجا إذا ما كي قبضت تاس ولا عليه هذا نودد عمان هاي نتصية كتب طبعا خلطنا كقرأ هدوم منها تيها نتصية هدوم منها بيها نتصية السلام عليكم هذا هو وهابيو أنت أنا كتبت هذا الجلين وحرمناه إن المركة وحير كان رهنه وحوها دقن كوذا ننكي مجع إقاتين وهابية محمد عبد الوهابها وأباها حب دقن كيسي إيوه وحو أصلا سؤال كي iyo muslimiinta markaa joogtay oo la mucaasarooto isku waqtiga joogeen waxyaalaha kala qabsaday iyo waxyaalaha u soo joogeen ayaan rabaa marka hal iyo laba inaan ka iraahdo waliba waxaan marqaati u keensan doonaa wahaabiyada laftigooda oo ayagu ay afkooda ka sheeganayaan ka qiranayaan waxaan sidoo kale marqaati u keeni doonaa in diinta islaamka nimankan loo soo diray inay burburiyaan aysan ahayn niman diinta islaamka u gargaaraya taasna ayadana marqaati baan idin durgeynayaa insha Allah marka waxaan rabaa hal iyo laba inaan ka iraahdo waxaan soo qaadanayaa muftigii weynaa Xanaabilada Maxamed bin Abdullah bin Humayd an-Najdi geeriyooday 1295 markuu ahaa hijriyada kitaabkiisa la yiraahdo as-Suhub al-Waabila ala daraa'ih al-Xanaabila boga 276 wuxuu ku leeyahay an Maxamed bin Abdul Wahhab ka warramaya Maxamed bin Abdul Wahhab wuxuu yiraahday فإنه كان محمد بن عبد الوهاب وحوها إذا باينه أحد هذه أي كلبودان ورد عليه أولي برديه ولم يقدر أوسن أوذ على قتله مجاهرة سل موقته إنه أدله هدوسا أوذ كروايه يرسل إليه وحو أدر جري من يقتاله قف سشر قال كدله في فراشه قوشيسا أو في سوق كدله ليلا هبن مجدي أهندله أي أدر جري واللي قولها أسوى مركز طهايا سيدا أوبانا يسانها وحوي بتكفير من خالفه قفك خلافي إنو قاليه ها عبد الوهاب عدي خلافته إنو قاليه واسيدا هذا كوانا إدهان وقالوا وحايا كسهور جيدون واستحلال قتله هذا دل كيسو أيوبانا يسانها يا قفكاس انتهى الكاس كل أمال مركب ها عبد الوهاب وانيك النوع عاسة قف الله على قفك وعلمي أقون وأوذي وايه إنو اسكار دعيه والله علمي بطوح الله يهلدلو مفتيجي شافعي جاها كاوها مفتيجي حنابلة مفتيجي شافعي جاها مكة مركا مفتيجي كاها ومضحدة مدرسين طبعا مضح وضعها نيكل أورنجري الشيخ أحمد زين الدحلان كتاب كيس الدر السنية في رد على الوهابية بقى أفرتن يلح وحا وكسو قادها يا وركان أساقنا وكان محمد بن عبد الوهاب وحوها يقول مدير هذا إني أنيقو أدعوكم وحا إذن كويرها إلى توحيد با إذن كويرها شركي أو لغتك بالله إلهي لو شريك يالو وجميع ما هو تحت سبع الضباق طمان انت سمدان هوست إذا كجرته مشرك وقال على الإطلاق أيضا لك القادم وادتك إسلام كهودن هدو وحاد يعني سمدان هوست إذا تضمدان سم هوست إذا وحا كل واق مشركين بيله
ومن قتل مشركا قفكي مشرك دلنا فله الجنة جنة أسقنات يا جنة بحنا إنك ذاتك كونفورم كسينها وأسيا محمد عبد الوهاب قفكي مشرك سود وقفكي من مسلم سود له وحوي وأهل الجنة ويله وأعرف أن من خوارجها سيدتك الله ينهيان أيوة مشركين وهي صدتك قالها saraakiishu waa gaalo shacabka kuna waa ayagoo kale gaalo weeyaan nimankii dhihi jira dadkaan waa gaalo ee laga fiirso waa la yaabi jiray laakiin aqal ay hadan kartay oo wax meesha lagu hayaa arag agtarka dadka aanu ka dhalanay inay diintooda ka ridoodeen odayaashanadii duqowdanadii nabadoonnadanadii saraakiishanadii dhallinyaradanadii dadka aanu ka dhalanay waa mutajiin diinta allay ka laabteen dadka naga agtarkooda ridoobi kufaaro weeyaan nin kastoo dili karo dil ikhtiyaarkooda bannaan dhexdooda ayaa bannaan waxay diin iyo iimaan midna leeyihiin malahan waa murtad aan diin lahayn wax laga aqbalayaa ma jiraan wax camal oo laga yeelayo malahan waa murtad waxaa loo dilaya ردة وكافر وملحد ومجرم ومشرك ومن الله تقول خير هي دين الإسلام كمان نبا حقنا نوعويان نيكو هدو ردوبة نارتو ويكفر انتهي نارتو هدي ردوبة نيكو ويكفر انتهي أحد والبوسيدة قراء ورسعه كارويان هدو كمين هدومين بكعبحيين أحدين كفارويان مرتدين ودين تقال عبطي هاي اسكاليين إسلاميين هديك هدوكو تحدين ان تلكو صلى الله عليه وسلم كلا كده تراكيجة تعرفنا واوين لسلمين معهن وانا الميهود كل قول وحكم مهرسان ما جران علماء الإسلام كانوا أمضنا إلى ناقو قوريان ناكم مهرسان كما جرتو حقا معاويان والميهود كل قول تراكيجة ما تبكي دقاك كجرة أكثر كده وأبناء الزنين وإيه لا يكون نكال وليد بن المغيرة كل بعد ذلك الزنين أنكرنا ضدك عن سيدنا السلام هين بلسنا واحد إيجون وضوء إلى وحو لي وامتازوا اليوم أيها المسلمون فكا ولا كلا توعية مسلمين تو حق السوق ميرما هنا عامرة مسلمين تي ديمقراطيين تي وقاسيدي يو حق سقا نبضونا دي يو حق السوق قرما هنا عاسا إلى توعية هنا حق مرة وامتازوا اليوم أيها المسلمون مسلمين تو على دنبيالك وين دك قرن دك دنبيالك وين قرن وادك انت ما حكمك ديمقراطيه دونيسا هي انت دورasada u saxbinaysa هي انت حزبيه دونيسا هي انت حزبيه bana lacagta ku bixinaysa هي in alla inta dadka soo dooranaysa kulligood waa kristaan aan ilaahay agtiisa waxba u qoolin wana kufaar cadow allah ah haye waliba waan ku oranay sababka dacwada rabbigiin ka cabsada sababkiiba loo heshiiyey aan ku talagalno in loo heshiiyey la doonayo diigeena in la kiibsado la doonayo saraakiishu inay nagalato aan diinta ilaahay musra aan diinta u sameeyna cadowgeena daaqiliga aan iska dhicino waxaan allah ka rijaynayna inuu ka dhigo inii oo wala ka damay waxa la nasra ma'a sabri wa anna al-faraj ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra laakiin dadkii loo gargaar lahay aan noqono mata dagaalka Soomaaliya waxaan ka rijaynayna in ilaahay ka dhigo kii oo khasra oo si khasra waxa la dagaalka bacaada markii odayaati madaxdii saraakiisii hogaamiyaalkii jamhadu ay ku dhamaadeen waxa soo haray dad yar iyo dumar markay soo hareen ka gadaan dadka markuu ninka soo degdeg diinta ku qaateen dagaalka waa kii lagu warjeey jiray lagu calan dilaacilaha saraakiisha iyo nabadoonnada iyo ugaasiyada iyo daanyarada iyo balaayada meesha fadhida markay kuwaas dhamaadaan dadku ku taagi doonaan Allah ta'ala kariim marka ka gadaan dad maskaxdooda ay wax qaadanayso in wax yeelan ay suuragal tahay wuxuu kaloo yiraahday وكان محمد بن عبد الوهاب وجماعته جماعديسه يحكمون على الناس dadka waxay ku xukumayaan muslimiinta bitakfiir gaalnimo واستباحوا waxay banaysteen dimaa'ahum dhiigooda wa amwaalahum maalkooda ku waxay jabiyeen xurmada nabiga xurmada nabiga way jabiyeen way birtikaabihim ayagoo korahaya anwaac yani tahqiir lahu nabiga noocyada xaqiritaanka loo maro dhan ay nabiga u mareeno nabiga aad bay u xaqireen tullaahi wa salaamu alayhi hatta intuu ka yiraahdo u shaydaan aan haystaa ka fadli badan nabiyullaahi maxamed subhanallah waxyaalaha la yaab kale aad bay nabiga u xaqireen way haddana waa aragtaa mar walba inay ku dhahayaan nabi maxamed muxuu ku tari karaa muxuu yahay muxuu ku qaban karaa waa xaqiraad wey nabi maxamed waxna waa ku tari karaa waxna waa ku qaban karaa laakiin taxqiirka meeshaas u marinayaan وكانوا يصرحون بتكفير الأمة si cad u dhihi jireen ummadoo dhan inay gaala yihiin laga soo bilaabo 6 oo sano laga soo bilaabo wa awwalu man saraha bidalika arrinkaas qofkii cadeeyo ku dhawaaqa waxa uu ahaa maxamed bin abdul wahhab waxa وكان يقول middahu aha inni anigu ataytukum bidinin jadid inni ataytukum bidinin jadid anigu waxa idin la imid diin cusub baa idin la imid ayuu dhihi jiray marka diin cusub hada nabiyullaahi maxamed diintiisii ma aha marka والنبي نمو يعني قرصنها مركا دين تعصب وإيمان سمعت وكان يعتقد من اعتقاد سموها محمد عبد الوهاب أن الإسلام إنسان إسلامكو منحصر فيه إنه أسايكو كوبين محمد عبد الوهاب إسلام ما إنه أسايكو كوبين تايبو يعتقاد سنة وفي من تبعه عدة راعظة إنه إسلام ما كوبين تاي أياس كلي إنه المسلمين هم يعتقاد سنة وأن الناس سواهم كلهم مشركون وحي أياك كسو هردنا مشركين إنيهم سيداس أيونا محمد عبد الوهاب يعتقاد سنة وواحد الله يابك له sidoo kale yaani wuxuu sheegay muftiga Ahmed Zayn Dahlan wuxuu yiraahday kitaabkiisa wuxuu ku yiraahday la yiraahdo umraa'ul balad al-haram anna al-wahabiyata wahabiyada lamma dakhalu markay soo galeen Taif magaalada Taif markay soo galeen
قتلوا الناس يعني دتك ويلايان قتلا عاما ست جود بيولايان دتك ودن أي سكلا سوعين واستوعبوا أيوان كلا سوعين كعممين الكبيرة كان وين والصغيرة كان ير والمأمورة كان يعني لا حكمه والأميرة متك وحكمه والشريفة متك شرفت له والوضيعة متك وصية وصاروا يذبحون دتك أيو وحي نقدن كوك جورعها على صدر أم الطفل الرضيع يعني وحي حتى هرمرنا يعني أو لينت نحرس درada ay ku wadeen hooyada xataa naaska nuujinayso cunug yar waqatalu naas dadkii way laayeen fil buyut guryaha meel walbay ku laayeen wajadu waxay heleen jamaaca ay heleen yatadaarasuna quraanka kuwa isbarhayo baranayo isu akhrinayo ayay heleen faqataluhum way laayeen waa dadka quraanka akhrisanaya xataa way laayeen an aakhirihim kooda ugu dambeeyay xataa kow ka siiyeen ثم خرجوا إلى المسجد مساجدك أي أبحان ليقتلوا رجلا نينك إن الدلان في المسجد مساجد كجرة وهو الراكع أسوء ركوع أو أمس ساجد سجوسا وأركت وحي سمايا مساجدان دتك اسكو قرحيان مسجد كي دتك دلان وحارك يساعدت بلان أو مساجد كعاجن أو كعر مساجد كنت بقى شو سنة كورة أود بس حتى جمعة حتى مساجد ما كعب سنة مساجد كنت كنا ما مساجد ولا شو بعضها ما هو عرين sababtoo tahay masjidkii baa qofkan lagu ugaaranaya masjidkii waa wuxuu noqday meesha dadka lagu laayo madbax bay u noqotay dadka lagu gooroco lagu baabaasho marka nimanka muslimiin ma la dhihi karaa ma ahan muslimiin laakiin muslimka la dirsan yihiin ma arkaysa gaala inay sidaas ku sameynayaan nabigan uu sheegay salaatu illaahi wasalaamu calayh waxay ka tagayaan yani haddii alla kuuran yahay dadka sanamyada caabuda iyo gaalada ma taabanayaan laakiin waxay leynayaan biyo rasuulka salaatu illaahi wasalaamu calayh dadka muslimiinta hilaanahay waa sidii way wax Soomaali ka socday meel walba aragta masaajidii ninkii asoo rukuucsan iyo asoo sujuudsan dan kama leh mid waa dileen wanahabu nuquda lacagtiiba yani yay boobeen wal amwaala maalkii bay boobeen wasaaru waxay ahaadeen yadsuuna kuwa ku istaagahay bi aqdaamihim lugahooda gamadooda al masaaxifa kutubtii bay ku istaagayaan ونسخ بخاري iyo muslim kitaabkii bukhari iyo kitaabkii muslim ayay ku joogjoogsadeen وبقية كتب الحديث أحاديث كتبتها وحي صهر دم بي كتب جوجسدين والفقه بي كتب جوجسدين فقه والنحو بي كتب جوجسدين بعد أن نشروها في يعني الزقة والبضائح ودوينك مالها عريريغا يبنانا دن أي سا كتبتي وداديين كتبتي ودن هذا دين الإسلام كتبتي دين الإسلام مسلم بخاري نحو فقه وحوالبا أي ساس وداديين وأخذوا أموال المسلمين تمال كودر دن واقاتين وقت سموها وقيب صدين كما تقسم يعني غنائم الكفار قال هذا غنيموين كلاجها لسيد الله وقيب صدوا كلا أي وقيب صدين مالكينا سلاسة وقيب صدين وحساس سمينا ياوهي ومحمد عبد الوهاب يدتك إلى السعودية وحسمينا يساسو حد مركز هالكا وحنكاتو سايا وضع إلى دعوانا يسا أيجي أو حد نلجوجا أو ده هاي كتبتي تفاسير تيهلجوا كل جد دان كتو سايا واتني إلى دعوة نحرق الكتب هذه تفسير الإمام الطبري تفسير الإمام البغوي تفسير الكشاف للإمام الزمخشري تفسير زاد المسير للإمام ابن الجوزي تفسير الإمام فخر الدين الرازي تفسير الإمام القرطبي تفسير الإمام ابن كثير تفسير الإمام روح المعاني للألوسي تفسير ابن عاشور تحرير والتنوير تفسير الشنقيطي أضواء البيان وكل التفاسير اللي ما قدرت أنزلها من فوق ايش رايكم ذيلا كلها ناخذها هذا متعب ونحرقها ونخلص بسم الله الرحمن الرحيم sidoo kale waxaan ku tusahayaa ninka la yiraahdo Xasan oo inta hadda aan soo sheegay asagana sheegayo waa kana asagana ila daawo وهابيو waxay isku dareen takfiirin bulshooyin mujtamacadan ay takfiiriyaan iyo ayagoo ku jihaada oo jihaadkooda u bixiyay dagaalkoodii ghazawaad ghaniimaysto xoolahoodii waxa la wahaabiyo maxad gabdhaha iyo haweenka iyo carruurtan u qafaalan weydeen waxay dhawan min usulina annahu la sabya fi al-arab dadkan la dagaalan carab bay ahaayeen bay carabna in la qafaasho ma qabno usuushooda kamid tahay waabiyada usuushooda ma taqaanaan baan u malay sheekh abdullah bin muhammad bin abdul wahhab oo la sheegay inuu yahay wahaabiyo wadaadka ugu degan ee ugu mu'tadilsan lagu carro marka rabay wax la leexiyo waa sheekhu dhalay weesha maxamed baa dhalay markuu sheekhu dhintayna waa ninkii u istaagay inuu aabihi jagadiisii matala ka raamsado wadaadka iska lahaa way al-mukaffirat al-kalimat an-nafi'a fi al-mukaffirat al-waqi'ah quraan akhrin jiray risaalo uu qoray baa jira waagay wahaabiyadu yimaadeen 218 ay maka yimaadeen ee la niqaashay ee wahaabiya ay kala baxeen ummadihi kale risaalo uu qoray baa jirto leeyba wax aaminsan waa ku war wahaabi ka sida
fadhigu kaga sii daayay risaalo aad u qiimo badan weeye waana risaalada keliya ee cadaysay usuul wahaabiya waxay ka diin dhigato iyo waxay qabto fi lfuruuci walictiqaadaat wa usuul masaa'il risaalo ugu qiimo badan weeye haddii ilaahay jaanis isiiyo inta nafti mar inaan akhriyaan isku daya insha allahu tacaala wahaabiyadu marka takfiiru mujtamacaad ayagaa ugu ba'an marka la isku daro xugum iyo seef wada socda haddaba marka maxaa ogaatay nimankan diinta islaamka ayaa loo soo diray waxa weeye hadmu diini bismi diini diinta islaamka ayay burburinayaan magac islaamka ku burburinayaan waxaa marka hore lagaa dhaadhicinayaa oo la rabaa inaad qaadatid in lagu yiraahdo marka hore waxaa lagu leeyahay kitaabka iyo sunnada waxaan ahayn ma rabno kitaabka iyo sunnada ma ahayn waa kitaabka qur-aanka ah oo qalalan axaadiista waatay haddana markay ku dhahaan kitaabka iyo sunnada uma jeedaan mana rabaan dan kama leh haddaad wax walba kula imaadaan ayadu keenta ama xadiis u keenta kaa qaadan mahayo waxay ku leeyihin wixii kaloo ka soo haray waa qowl sheekhna ma rabnay waa waagi ay bilowdeen waxaas ku bilowdeen qaala allaahu wa qaala rasuulullahi waxaan ahayna noo sheeginay dheheen qaala sheekh tuura waa daaquuday dheheen sanam la caabudahayo wey waa ogeyd kutubta fiqiga waa baaba'sheen waa daadiyeen wixii oo dhan nimankaa marka horta hore hadmu diini bismi diini wey haddadana arkaysaan waa aragtay mawliidka iyo qajajacda iyo wax qaylo ka dhacayso hadduu khayr ku jiro abubakar ha samayn lahaa cumar ha samayn lahaa wuxuu nebiga samayn ma leh wax allaala wuxuu nebi maxamed uu samayn oo asxaab rasuulilah ay samayn oo taabiciin ay samayn oo taabici ay samayn oo khalaf aysan samayn oo qof sameeye aysan jirin ayay wataan oo bale iska badaa waxay wataana kii ugu muhiimsanaa oo nabiyullaahi maxamed caqiidada 13 sano ayuu makatul mukarrama caqiidada besa 13 sano ayuu ka hadlayay ayay waxay dhaheen maya tawxiidku 3 buu u qaybsamayaa nebi maxamed baan qaybin asxaab rasuulilah baan qaybin taabiciin baan qaybin taabici baan qaybin afarta madhabood baan qaybin maca daalika kutubtooda dhan ay ku qoran tahay taqsiim tawxiid tawxiid al-uluhiyya tawxiid ar-rububiyya tawxiid asmaa wa sifaat taas ujeedkeedu u yahay dad muslimiina in lagu gaalaysiiyo waxaad ogaanaysaa waxa ay rabaanna inay xalaal u tahay waxaysan rabinna inay xaaraan tahay niman diin marka doonaya ma aha waxa weeye waa niman ku socda ra'yigooda caqligooda rabitaankooda waxay rabaan ku socdo waaye nimankan kutubta gabadhan iyaduna ay sheegtay ay tiri kutubtaana waa haysana ayadana insha Allah waan fartaan ugu fiiqi doonaa khaladaadka ay kutubtoodan ka buuxa waa u sheegi doonaa ayadana waa ka qancin doonaa si toos ah isaga tuuri doontaa insha Allah taala marka intaasaan kusoo koobahayaa nimankan aad bay fataanin u yihiin diinta islaamka hadda bilaabeen tafaasiirtii oo dhan inay gubaan waa aragtaa haddii tafaasiirta la gubo maxaa aayadda ku fasiraysa diinta islaamku waa isu dhiibid waa qori dhiibide saxaabadii taabiciin bay u dhiibeen taabicina taabici buu u dhiibay saasay u soo socotay diinta sidii asxaabtii lagala soo kulmay oo asxaabta nabiga ay kala soo kulmeen aayaddan wixii laga fahmay uga soo gudbiyeen ayaa taabici loo gudbiyey taabici wixii ayaa noola qoray oo tafsiirkii noolaga dhigay wixii baa noola fasiray wixii baa noola sii faahfaahiyey wixii baa nala fahansiiyey wixii baa noola jilciyey maanta haddii la waxaasoo dhan hala tuuro macnaheedu maxay tahay diinta islaamka oo dhan ha laga dhex baxo war wahaabiya waa fidna iska jira war wahaabiya ka carara diintiinii iyo culumadiinii iyo wadadii saxda ahayd ku laabta kuwaan fataanin wey diintaysan ka baabeen intaasaan ku soo koobahayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu